kulankan ay maanta Hotel City Plaza ee magaalada Burco ay ku yeesheen ururka dawladaha hoose ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano Al-Ghazal oo ay ku midaysan yihiin maayirada degmooyinka guud ahaan gobolada dalka ayaa waxa ay kaga hadleen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen samatan bixinta dadka iyo dunyada ay abaaruhu saameeyeen. Duqa caasimada labaad ee dalka Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa furitaankii shirkan ka hadlay isagoo oo magaalada Burco ku soo dhaweeyay maayirada dalka. waxaan aad u soo dhaweynaa maayirada dalka iyo ururka dawladaha hoose ee Somaliland ee Al-Ghazal waxaan ku soo dhaweynaa degmadan Burco waxaan leenahay marka hore soo dhawaada mar labaadka waa idin mahadnaqaynaa sida quruxda badan ay ugu soo gurmateen dadweynaha reer Somaliland khaasatan waliba saddexdan gobol ee bariga ee imika abaartu ay ugu badan tahay sida ugu soo gurmateen gurmadkii hore ah bixiseen ragga degmooyinkooda sida khaaska ugu gurmaday iyo ragga degmooyinkoodina u gurmaday kuwa kalena soo dhaafay maayir Cabdishakuur oo kale iyo maayir Maxamed Amiin oo kale maayirka caasimada Somaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Soltelko oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si faahfaahsan uga hadlay nuxurka shirkaasi. shirkaygan wuxuu daaran yahay sidii degmooyinka Somaliland iskaga kaashan lahaayeen xaaladaha abaaraha oo hadda soo noqnoqday haddana muxuu ahaa saddexda gobol ee bariga u badan dalka intiisii kalena aad moodo inuu ku sii dhow yahay waa meelaha ugu badan ee la isugu tagay deegaanka Gabileyna sida banka Wajaalo kale iyo ay iyagana xaaladoodu ay ku soo dhowdahay alxamdulillah xalay roobkii xogaa waa heleen haddii ay si adkaato ay ku dhawaan lahayd shirkaygu wuxuu daaran yahay laba qodob xaaladda taagan hadda sidii wax looga qaban lahaa iyo muxuu ahaa xaaladda jiilaalka saddexda bilood si loogu diyaargaroobi lahaa insha Allah taala shirkaygu markuu bari soo gabagaboobo ayaanu sheegi doonaa maanta halkan waxaan ku cilaaminaynaa in shirkaygu ku furmay hawlaha iyagiina laga wada hadlayo burito lama ku noo dhamaadana labada xaaladoodba wixii aanu kala talagal kaga sameynay hadii ilaahayda ayaanu sheegi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. si kastaba ha ahaatee kulankan ayaa la filayaa inay ka soo baxaan midho dhal dheef iyo dhaxalba u noqda dadka iyo dunyada ay abaaruhu saameeyeen. waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Germany Bulsha TV Burco.